Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu daawadayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo xogta ciyaaraha qodobada ugu waaweyn warkana waxaa ka mid ah ciyaaryahankii kooxda kubadda cagta Bayern Munich Arjen Robben oo ku biiraya mid ka mid ah kooxaha Bundesliga dalkaasi Jarmalka. Liverpool oo xilli ciyaareedkan Premier League u bilaabanaya iyadoo aanan haysanin Mohamed Salah iyo Sadio Mane. Juventus oo sheegtay inay soo dhaweynayso helitaanka saaxiixa Paul Pogba. Koobka qaramada qaaradda Afrika oo habeennimadii xalay ka furmay dalkaasi Masar ayna iska hor yimaadeen Masar iyo Zimbabwe. Real Madrid oo heshiis amaah ay ku soo dalbatay kooxda Napoli ciyaaryahan James ay ka diiday. Qodobadaasi iyo wixii kale nagu soo kordhaya warkeena ku daawad doontaan, balse haddaad ku cusub tahay channelkeena subscribe inoo saar. warkeena ayaanu markan si toos u guda galaynaa qodobada waxa ugu horeeya ciyaaryahanka kooxda kubadda cagta Chelsea William ayaa waxa lagu soo waramayaa in uu diiday mushaar qaali ah oo ay u soo bandhigtay koox ka dhisan dalkaasi Shiinaha. kooxda lagu magacaabo Shanghai oo ka dhisan gudaha dalkaasi Shiinaha ayaa William oo 30 sano jir ah waxay u soo bandhigtay lacag gaaraysa mushaar ahaan in uu u qaato $100,000 isbuucii gudihiisa iyo gawaari fara badan iyo guriyo isagoo markaas dego gudaha dalkaasi Shiinaha. laakiin 30 jirkan kooxda Chelsea oo ciyaaray xulka qaranka Brazil waa uu diiday. William oo booskiisa kooxda kubadda cagta Chelsea gabi ahaanba lumiyay oo Premier League oo dhan xilli ciyaareedka la soo dhaafay 3 gool kaliya ka dhaliyay inkastoo caawintiisu ay aad u wanaagsanayd oo xulka qaranka Brazilna markaa u saftay Copa America daqiiqado kooban oo hal kulan ah ayaa waxaa leeyahay waxa uu diiday inuu ku biiro koox ka dhisan dalkaasi Shiinaha. taageerayaasha kooxda Chelsea ayaan arrintaas aad u soo dhaweeyay. kooxda kubadda cagta Juventusna waxay sheegtay in ay soo dhaweynayaan helitaanka saxiixa Paul Pogba. gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Juventus ninka lagu magacaabo Patrizi ayaa waxa uu sheegay in Paul Pogba ay aad u jeclaan lahaayeen inay ku arkaan magaalada Turin iyo kooxda kubadda cagta Juventus isagoo maaliyadiisa xiran. laakiin waxa uu ninkan odayga sheegay in xilligan Pogba uu yahay ciyaaryahan Manchester United ah. laakiin waxa uu tilmaamay ninka lagu magacaabo Fabio Paratizi in xilliga soo socda ay heshiis la gaari doonaan ciyaaryahankan Paul Pogba ayaa sanadadii hore isagoo markaa ka tagay Manchester United ku biiray kooxda kubadda cagta Juventus halkaasi magac iyo sumcad weyn ku soo yeeshay taa oo markaa isaga laftiis ka dhigaysa in uu doorbido inuu dib ugu laabto kooxda Serie A dalka Talyaaniga ka dhisan Juventus. habeennimadii xalay ahayd koobka qaramada qaaradda Afrika ayaa waxa uu ka furmay gudaha dalkaasi Masar waxaana is arkay laba xul oo waaweyn oo lagu bilaabay maadaama xulka martigelinaya uu yahay Masar oo markaa ay wada ciyaareen ama la ciyaareen Masar xulka qaranka Zimbabwe. kulankaasi oo weerar celis daafac qad dhexe isku wada sinaayeen qaabka kubadda u socotay. ciyaaryahanka ugu magaca weynaa oo markaasi aadka daawadayaasha ay ugu riyaaqsanayeen wuxuu ahaa Mohamed Salah oo ah ciyaaryahan Premier League ay kooxda kubadda cagta Liverpool ciyaara. kulankaas wuxuu ku soo ilaaday 1-1 oo xulka qaranka Masar ku adkaaday. daqiiqadii 41 ayaa waxa uu dhaliyay ciyaaryahanka Trezeguet lagu magacaabo ee kooxda ama xulka qaranka Masar u ciyaara. marka Masar xalay gool ay ku furtay inkastoo Mohamed Salah wax gool oo san dhalinin. marka kulamo dooran way dhici doonaan qaybaha dambe warkeena ayaa idinku soo gudbin doona kulamada dhici doona. kooxda kubadda cagta Real Madrid waxay markaasi diiday qorshe kooxda Napoli ay doonaysay oo ahaa in ciyaaryahanka lagu magacaabo James ay soo codsatay kooxda Napoli oo Real ay ka codsatay in si amaah ay ku qaataan laakiin kooxda Real waa ay ka diiday. ciyaaryahanka xulka qaranka Colombia sida weyn uga dhex muuqda koobka lagu magacaabo Copa America ee gudaha dalkaasi Brazil ka soconaya ayaa waxaa xilli ciyaareedkan laga yaabaa inuu dib ugu laabto kooxda kubadda cagta Real Madrid maadaama kooxda Bayern Munich ciyaaryahankan u ciyaarayay ay sheegtay in ciyaaryahankan dib u laaban karo kooxdiisa Realna dib ugu laaban karo oo la fasaxay. laakiin Real heshiiskan waxay u diideen leeyahay waxa macquul ah in Zinedine Zidane qorshihiisa cusub ciyaaryahankan uu ku darsado. tan kale ay xaqiiqadu tahay waxay tahay in Real ay doonayso ciyaaryahankan si toos ay u iibsato balse aanan doonaynin si amaah ay ku bixiso.
kooxda Bayern Munich ciyaaryahankeeda Arjen Robben waxaa lagu soo warramay inuu ku biirayo Borussia Mönchengladbach kooxda la yiraahdo oo ka dhisan dalkaasi Jarmalka. Borussia ayaa waxa ay sheegtay oo xaqiijisay in ay ku guuleysteen in ciyaaryahankan keenaan garoonka kooxda kubadda cagta Borussia Mönchengladbach iyadoo lagu soo warramayo in ciyaaryahankan uu ka mid yahay ciyaartooyda ugu khibradda badan ee Yurub ka ciyaarta ayna aad ugu faraxsan yihiin in ciyaaryahan weyn oo la yaqaano oo horyaallo champion wax kasta ku soo guuleystay in ay keenaan kooxda kubadda cagta Borussia Mönchengladbach. Liverpoolna waxay waayi doontaa ayaa la leeyahay Premier League marka uu furmo ciyaartooy muhiim ah waxaana ka mid ah Mohamed Salah iyo Sadio Mane labaduba waxay ku kala maqnaanayaan xululkoodii qaranka ee Senegal iyo xulka qaranka Masar marka labadan ciyaaryahan kooxda Liverpool way waayi doontaa ayaa la leeyahay koobka furmaya ee markaasi Premier League 2019 ilaa 2020 ugu dambeyntiina xalay sida hore idinku sheegnay koobka qaramada qaaradda Afrika waxa is arkay labada xul Masar iyo Zimbabwe waxa ku soo ilaaday hal iyo waxba oo marka Masar ku adkaatay koobka lagu magacaabo Copa America caawa kulamada dhici doona waxa kamid ah Bolivia iyo Venezuela ayaa sarki doona Peru iyo Brazil wada balansan dhinaca gabdhaha koobka adduunka Faransiiska ka soconayana Germany iyo Nigeria waa ay wada ciyaari doonaan Norway iyo Australia waa ay wada balansan yihiin ugu dambeyntiina koobka qaramada qaaradda Afrika caawa kulamada ugu soo horeeya la ciyaari doona waxa kamid ah DR Congo iyo Uganda.